marka halkaan marka faylan ku haya faylashan marka kiiskaaga waa ka baxsan tahay adaartana waa haddii aad xogaysan waa ila wadaagi kartaa halkaan marka faylan ku hayaa okay halkaan waxaan ogaaday in dawladdu ay aqbashay inay siiso sharciga oo dhawaan sii doono malyuunmaanka iyo mismool amba waa markaas malyuunmaankana ilmaha ay dhasho lagu siinayo waxa loo yaqaan FG approval lagu sameeyay lagu ogaaday inay xaq u leedahay inay qaadato mismool waxaan kaloo arkay halkaan candaan model inuu haysto baasaboor kenyaan ah waa gartay waxaa kaloo arkay oo la yidhi waxaa loo celinayaa meesha la yidhaahdo interview ka dhuumanaya laakiin waxaa loo celinayaa ha la yidhi meesha la yidhaahdo kenya waxaan kaloo arkay Shabalala iyo Sanaboy inay haystaan 3 diidmo 3 jeer ay waa gartay aniga markaa fiiriday aniga saa u sheegtayba xogteeda waxaa ka heedaabe oo qaabkan ku soo baxay falantir departure-ka maxaa waxaan maleynayaa lama helayo haddaa magacayga la fiiriyo maadaama kiiskayga oo la laabay ma la helayo u maleynayaa ama kiiskaaga uu dhammaaday waxaan kaloo arkay Hussein Ogaadeen iyo Ayub Carlo labadaba in looga yeeray interview laakiin ay diideen intagaan ay gooyeen والله ظاهروا هل مدام مدام أوجع حواي قف كان دربي يكبودو قف كان أدقتهاي مجلس السدحان أدقتهاي أمريكا وحدة ما بقرصونه بقى وح قرصون معه وح كستو عايز والله ها هذا قف هذا جريقان سوق مجرو عاو هذا قف فيرو أما أصل فيرو ولا سوق قلنا على اللي تركي أورنجادا لو قلي دمبي لو يست دمبي كلا أوبيري wax qarsoon maaha wax kasta banaanka yaala ma fahmi laakiin anu midda ogahay waxa waaye America marka dirbiga ka boodo inay ku bila mid kale hadda waxa laga yaabaa videogan duubeeno dad inay u xirxiran yihiin daahiro inay boodaan laakiin waxa rabaa inaan tala siiyo dadkeena markii ay Europe ay soo aadayaan waa ilbixin waaye jawiga la socdaan interviewgi waxbay ogyihiin waxaan arkay dadkan ka imaanaya badi Kenya ka imaanaya ee soo aadaya America dirbigan ka soo boodaya they don't know nothing magac saddexda magac ay diyaarsadeen iyo dhalashadooda mahane wax kale ay soo diyaarsadeen malaha waxa dhacda marka dad la reebo oo safarka laga reebo safar kasta waxa laga reebaa 10 qof 15 qof waxa la yiraahdaa halkaan interview ku mareysaan markay ninkaas bas ogaanay oo aan kaarkiisa ay cabdidaan ka war wallahi kuwaas warbixin sax hadda waa ka siin kara kuma dhigi kara laakiin waxa ogahay wax kasta dadka meeshan soo wada maray kulli online ka keenaysa sa u soo heshay gariiqan arinkiisa iyo tayda iyo qof kastiis waa la soo heli karaa laakiin waxaan confirm ku hayaa waxa rabaa ninka laado fanaankii Ismaaciil Danan la xiriir Ismaaciil Danan ka war xogtiis إسماعيل دنن إسماعيل دنن قصب رجوع ليه نكاس مصابع علينا دور رجالها علينا موسى صابع علينا لابو هي ماشان جرتو مرسل موسى كمان والله اسمه تاس مش هيك لكن إسماعيل رجوع صابع نكاس بلاش مصابع وايو سد حد محكمات بواسطة ما يستدايروا نين سد حد محكمات صوت ما يستي برنامج كانوا صابع والرجوع okay dadka dhawa fahmay Shabalala oo inta comediana oo hadda passport kalena wada nagdami ah maxay ku tahay in lagu siiyo 3 oo negative muxuu ku qaatay niyo wallahi daahiro dadkan laba midba dadku waa ku diidaan saa arkay hadduu passport ku soo baxo waa ahaatay ilaahay oo ka qabta mahane koow talabaad saa hadda ku sheegayay taariikh ina isdaba marisay ama laba magac hadii lagu qabto kala way keeni kartaa iyadana inta badan dadka arkayo meesha ku jiray Sanaboy wuxuu ku yimid si sax ah Mareykanka si fasaxo ku imaaday sida xasanto lagu siiyaa naga
ها محنك تفلوسيها والله اني تاس مشي كري لكن ninkaas sida xasan toob oo kale sifa sharci uu ku imaaday taas ma sheegi kari waa ma garanayo ma sheegi kari wuxuu ku heli karo هي dadka maxad ku leedahay dhalinyaro badan rag ay tahriibaan oo waqtigooda lumiyaan dadkaas oo Mareykanka ku tahriibay maxaa ku leedahay waxaan ku leeyahay meel qofkii intuu hadda ka horeeyay galay dhalinyaradii ka horeysay tusaalaha ku ahaadaan guryaha raggi ayagoo warqada shaqada heesta oo aan draagis maaragtay sameeyeen problem kale sameeyeen nadiif ah shaqeynaya canshuur wadanka soo gelinaya ayaa inta guriga loogu jibiyo la soo bixiyo ice intee qaadato xabsi la geenooya al tarxiilooya marka meel ah u jeedidba inay saas ka socoto waxaad qarash intaad u maaragtay u gasho dirbi uga boodo ana waxaan dhihi lahaa sameynina qofkii ku tala jiro inuu iska dhaafo aan kula talin lahaa okay su'aalkan qaba qof aana ama gabar ama wiil aana ayaa baxaya Mareykanka tagayaan dirbi ka boodayaan markay tagaan life soo fariisanayaan noloshooda soo bandhigayaan halkaas ay ka fadhi ku dirayaan halkaas ay ka aytamayaan arintaas maxay kula ayagoo basla ila siinin oo xaaladda nin baa bajeel yiraahdo aad taqaano oo caan ah Soomaalida ay taqaano ayaa hadda ka hor maalin leel balin daaqada u soo koray asoo interviewgiisi maalin ilaahay keeno shactire ka dhigaayo oo wixii gaaladu u sheegi lahay meesha ka sheegayo ayaa maalin leel balin u soo koray dadna wuxuu yiri baabajeew waxaan hadda aan sameynayso waxay kugu noqon karaan in waxa heli lahayd aa ku weydo ay kugu noqon karaan dhibaato kugu noqon karaan waana dhacdo waa aragtay baabajeey waa tii negative la siiyay marka qofka sidiisaba hadduu asoo caan ah oo wadan soo galo uu raadinayo inuu sifo sharci uu maaragtay uu ku helo waxa wanaagsan sideedaba waxa wanaagsan inuu maaragtay isgaagaabiyo waayo anaa ligu dhahay isgaagaabi aniga aa ii jeedid markaan soo galay waxaa ligu lahaa isgaagaabi 3 bilood YouTube ma soo duubin 4 bilood ma ahayd social media ma soo gelin YouTube ma soo duubin markii arinkaygu dhinac u dhacay aan ogaaday in aan ku noqonayo Austri markaasaan YouTube ka bilaabay inaan soo duubo iyo book iyo TikTok iyo qaalo laakiin 4 bilood July muudan ku jiray marka qofka hadduu caan yahay oo wadan tago oo rabo inuu asylum isaga dhiibo oo rabo inuu nolol helo waxa wanaagsan qofkaas inuu isqabeeyo sida saxda ah ma fahad thank you CK programka si fiican aad ila sameeyay xog fiican oo ka helay oo ku saabsan qana ila ku sameeyay socdaal oo Yurub soo galay socdaal oo Yurub soo galay saaxiibkii socdaal oo Yurub soo galay oo Vienna jooga wadankan Vienna jooga waa u fadhida jooga ha tiri mo jooga Vienna jooga u fadhida ha halka hees aruuriyo xariif way hees aruuriyo u sheeg hadda ma aragtay adigu ma aragtay socdaal ma aragtay inta oo dokumentiga ka qaadanayo aad iyo aad oo guriga helay waas aruuri xariif waa gaasha nolosha looga dhaca waxay u maleeyaan social media ka hadalkiisa inuu yahay wax weyn hadan anaga awoodina caan ma noqon lahayn la aanimada moogta dhibta wallahi caanimada daahirow ina markaan fiiri markaan miisaamay caanimada anigu markaan miisaamay faa'iidadeeda iyo qasaaradeeda boqolkiiba